aad u mahadsantihiin soo dhawaada warbaahinta qaranka maanta nagu soo booqatay furmaha ciidanku ay joogaan oo nooca qawaariijta lagu dagaalamo xaqiiqdii hawlgalladu waxay marayaan meel fiican oo arkayseen saakay iyadoo la sooman yahay iyo iyadoo la afrayay nooca qawaariijta waa la direynaa waan u taaganaa had iyo jeer waxaan rajaynaynaa inaan ka guuleysano insha Allah inta Ramadaanka ka dhiman 15 bari oo horeys inaan wax rabno aan galmudug iyo Soomaaliya inta ay ku harsan yihiin baan cagta marna insha Allah madaxweynaha qaranku oo ku dhawaaqay hawlgalkaas waxaan rajaynaynaa si buuxda inaan gacanta ugu dhigno meelaha ay joogaan iyagana inta ay ummadda shacabka ay dhibaateeyaan ilaahay inta hore ugu simo waxaan rajaynaynaa inay gacanta ay soo galaan iyaguna annaguna waxaan leenahay ciidanka uga mahad celinaya iyagoo sooman oo maantay bil Ramadaan lagu jiro ajarka ay shaqaysanayaan waa laba jibaar sababtoo nin sooman oo misna nin qawaarij la dagaalamaya waa dareemi kartaan ciidanka waxa la aad iyo aad u mahadsantiin xagee maraya marka hawlgaladii si guud sharaxaad guudnagas hawlgalkii ka socday galmudug gaar ahaan gobolka mudug ka socday ma uusan istaagin waa socdaa wali waxa ka dareemi kartaan saaka marka noo timaadeen waa socon hawlgalaan ku jirnay waxaan gaarnay meelihii cadowga laga sifeeyay waana u socdaa hawlgalku waana ku daba jirnaa meelaha ay ku dhamaalaysanayaan idinku marka hawlgaladan ma joogtaan u soo bisiin masaad hawlgallo qorshaysan oo sida maanta kala ah tabcan filis hawlgallo joogtaan afilnaan waa jiraan hawlgallo khaas ah oo riboodyo inta laga keeno aan fariismood ugu tagno aan soo burburina waa jiraan maxaa marka guulaha gaarteen marka inta hawlgalladaas kala duwan oo filisay xaqiiqdii guulaha weyn ka gaarnay fariismo badan laga wareegay degmooyin badan laga wareegay qayacada laga saaray xarxaara laga saaray gaadaya laga saaray saaka meeshan ugu imaanaysan waxa ay baalka u jiray sheegaan qayacad ka shay ciidan ka yimaadeen meesha la xarxaar waxaan raadinaynaa talis ay degan yihiin oo aan sidii talisada hore ugu burburno kale aan ugu burburno ilaa haddana farxad ku jiraan isku maysa waa sii socdaan awoodda marka ay argagaxisada ku leeyahay hadda aagan idinka soo xiga gaar ahaan koonfurta gobolka mudug dhinaca hadda idinka soo xiga xog guud sida xogta ku hayno wax awoodo kuma hayaan sababta waa dareemi kartaa nin taliskii uu deganaa inta laga waayay dhuumaalaysanaya oo xijaab xirtay oo diyaaradii ka dhuumanaya oo ciidan ka dhuumanaya oo dadka shacabka kale ariga in raacay intuu xijaab gashaday waa dareemi kartaa awoodda inta laagta aad waxa jirta horay cuno qabateen la saaray oo daabaha amniga galmudug dhan ay duurjoog ay ahaayeen ama xogtaas dabcan xayiraadda al-shabaab in la saaray gaadiidkooda ay sanad u gudubtay sanadii ma waxba iska bedelay mise go'aankii amnigu waa meeshiisa xaqiiqdii go'aanka madaxweynuhu ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha galmudug mise baalka u jiray ku dhawaaqay kaasi sidaas u noqday inta u saaranta kaliyana ma saarnay xataa dadka shacabka la dhibaataysan sababta kaliftana waxa weeye nimanku waxay ku qarsan jireen gaadiidka shacabka ku dhaxluuban jireen waxa loo rikaatay oo hadda guulaha ugu badan laga gaaray waxa weeye gaadiidka la xakameeyay la joojiyay awgeed weey tabtiina u taagay wax la fasaxay ma jiraan maxay saameyn ku yeelatay marka argagaxisada xaqiiqdii waxay ku yeelatay saameyn weyn ku yeelatay waxa ku dhacday cunto la'aan ku dhacday rasaasta waxa loogu keenay jiray dhuumaalaysi rasaasta ka go'day shidaalka ka go'ay dhuuniga ay cuni jireen ka go'ay nin marka cunno qabateen la saaray waa dareemi kartaa inta uu noolaa karo hawd ku jiri karo si guud marka hawlgallada hadda bisha baax lagu jiray bir Ramadaan idinka ka ciidan ahaan maxay kaga dhigan tahay hawlgallada haysa wallahi waxay nooga dhigan tahay guul anagu hawlgalka waa ku jirnay haddana waa ku jirnaa iyadoo ka sii fadli badan oo bir Ramadaan aan ku jirno aan u taaganay boqolkiiba boqol sidii hawlgalka caadiga ugu jirnaa haddana ugu jirnaa waxna iska bedelay wax naaqus mal har iyo hamina u taaganay dadka shacabka inaan difaacno oo nimanka qawaariijta ka ciribtirno inay dadka isku dirayaanna horena waa loo ogaa waan u ognay haddana waa ka sii foojiganahay dadka shacabka hadda wada degan walaalaha isku dhufanayaanna waxa uga digaynaa inay ka foojignaadaan taargada noocaas oo kale ama amarada noocaas oo kale dadka shacabka ay isku dirayaan inay ka foojignaadaan ugu dambeys guud ahaan maxaa u baaqaysaa shacabka reer galmudug haalee la dagaalanka argagixisada iyo bisha Ramadaan lagu jiro door caynkeeda inay ka qaataan hawlgallada socda waxa uu baaqi lahaa hawlgallada socda inay ka qayb qaataan alla uu ka qayb qaadan jireen laakiin waxa lagu jiraa bil Ramadaan oo barakaysan lagu jiraa waxaan rabnaa dadka shacabka aan rabnaa ugu baaqo inay laba jibaaraan taageeradii iyo intii ciidan
ay ku taageeri jireen inay sii laba jibaaraan ciidankana waxaan leeyahay foojignaan dheeri ah iyo saraakiisha waxaan leeyahay bishii mino ha korayso cadowgu waa dhagar badan yahay inaan waxaan rabnaa annagu dhagar aan u dhigno inaan dhagraan ma rabno waxaan rabnaa haddii ilaahay idinkiis waa ka guuleysanaynaa haddana waa ka guuleysanay waxaan leeyahay dadka shacabka ha kaceen ha iska saareen nimanka khawaarijta ah wax waa dulinimay dadka ku haystaan annaguna dulinimo qaadan mayno waa ka soo horjeesanay hore aan u soo jeesanay dadka masaakiinta oo ay hadda ay ku dulnool yihiin waxaan rabnaa oo ay arigoodii iyo baraashinkoodii ay ka dhameysteen ay naftooda qutuliyoonka ka soo gataan oo lacagta faraha badan ama $80 laga soo siiyo ay ka sii qaadanayaan waxaan rabnaa inaan ka dul qaadno dadka ayagana waxa ugu baaqaynaa inay si degdeg ah ay qoryahooda u qaataan oo ay la dagaalamaan